Hello. HJ family. HJ family. Aniga dhalinyarada social media ku jirta ee xaasaska ah wiilkan iyo gabadhan waa gabadh Maraykan iyo wiil Soomaaliya aad baan u jeclaa aad baan u taageeraa waxaan ahay number 1 fanka ugu weyn waa positive waa laba dhalinyaro ah oo 4 caruur ah waa aabiyo hooyo 4 wiil inay leeyihiin ayaan jeclahay waan idin la wadaagi doonaa wiilka iyo gabadha mar kastood aragto farxad baa ku gelaysa mar walba way faraxsan yihiin waa hooyo hawl adduun bay ku jirtaa ilmay iskuul geysanaysaa ilmay madraso geysanaysaa ilmay way karinaysaa waxaas haddana mar kasta iyadiyo odayga wiilka qabo waa odayda waa dhaqanka Soomaalida waxa weeyaan waxay isleelaan time ay labadooda qurux badan oo isku faraxsan video yaro qurux badan oo positive ayay soo geliyaan guurku xalaasha ah should be labada qof dhalinyarada sidaadoo kale in ay u faraxsanaadaan inay positive ahaadaan inay isku jeclaadaan I like them iyagoo ay tamaya iyagoo murmaya iyagoo dhaqan xun samaynaya midna ma arkaysa gabadha Maraykanka she is much more gabadha wiilkaasaa guursaday wuuna soo muslimi iyadoo soo muslintay yay 100% gabdhaha hooyadood muslimka taa aabahood muslimka yahay oo Soomaalida 90% ee media ku jira ay ka akhlaaq badan tahay oy ka eedaa badan tahay oy ka marwaysan tahay oy ka asturan tahay maasha Allah waa gabadh aad karti iyo sharaf waxaad u malaysaa sometimes gabdhaha especially gabdhaha aniga reer Maraykan iyo reer Canada ayaan aad u arkay inay inaga karti badan yihiin inaga gabadheena 4 cunug haysata waxaa laga yaabaa time ay waqti ninkeeda kula qaadato inay seelin inay mar walba hawlo badani ku gadaaman yihiin bareeshar ka weyn oo kori lahaa ma jirto gabar familigooda dhan u Kirishtan yahay oo Kirishtan family ka soo jeeda oo haddana caddaan oo go'aansatay fiirin inay diinta islaamka qaadato waa wax adag oo reerkooda dhan uu ku colaadinayo oo laga yaabo inaan familigooda qaar salaamin waayo inagaba cunugeenu hadduu Kirishtan noqdo xaalad aad u adag bay ku noqon lahayd bay nagu noqon lahayd isagana ku noqon lahayd number 2 inay nin madow iyadoo gabar cadoo Maraykana nin madow oo Afrika ka yimid inay guursato waa another barashar kale oo caruurteedu ay noqdaan mixed madow iyo caddaan isku jiro intaasoo idil wiilka iyo gabadha markaan arko waan ku farxaa waayo laba qof oo isqabto intaas gabar dhalinyaraha soo muslintay oo hooyo 4 caruur haysata oo wiil madow guursatay intiina North America aan deganayn ma ogsoona culayska ay leedahay kuwa muslimnimo ku dhashay oo aabiyo hooyo iska dhaleen iyo caruurtoodii cawradooda media kaga sheekeeyay oo iskula saxan oo naagteeda naasideeda media keenay kuwa noocaasi gabadhan iyo wiilkana ka akhlaaq badan oo ka wanaagsan hana ku daysadaan habla yaryar oo Soomaali u dhashay ayaa dabada wareejinaya oo naasooda banaanka dhigay oo madaxooda qaawinaya gabadha way soo muslimta wiil Soomaali oo madow ay guursatay diintiisu way la qaadatay fiiri haddana sharafta hooyana wiilal baan dhala wiilashayda guur baan u rabaa ma garad
baan u raba waxaan fiiriyaa intaa gabdhaha iyo dhaqanada wiilashayda inta badani waxay ku dhasheen north america canaday ku dhasheen kuwa kalena iyagoo aan waxba ahayn baan keen marka waan fiiriyaa waxaan fiiriyaa guurka waxaan fiiriyaa dhaqanka gabdhaha soomaalida gabdhaha soomaaliyeed 100% way asturan yihiin dhowrka miidiyaha joogay dhaqanka xun ma matalaan gabdhaha soomaaliyeed laakiin wiilkan iyo gabadhani bareeshar ka saaran waa bareeshar aad u fara badan waa bareeshar aad u fara badan for example waxaad ka soo qaadaa gabar soomaaliya oo nin caddaan oo haddana kiristana guursatay sida loo arki lahaa gaal bay guursataa la oran lahaa nin cad bay guursato communitygeedii bay ka baxdaa la dhihi lahaa wadamada muslimka ah wiilasha gabdhaha guursada wiilasha muslimka oo ajanabiga ah bal culaadiya ama afrikaan ha noqdaan ama carab ha noqdaan ama turkish ha noqdaan ama ha noqdaan wadamada kale gabadha intaasoo baraashara iyada iyo wiilka waa laba dhalinyara they are very positive I admire and masha Allah kaftanka arag waxaan idinla wadaagayaa fiidiyowyadooda kale yaan idinla wadaagayaa aan HI family habo I love you you're a beautiful family I admire you and I'm sending this message the young mother we're so proud of you سوق أنك صار فيديو غير سوق This is a more positive فرحة هذا ربتد وتقول قروحديس ربتد wiilkaas iyo gabadhaas stresskaas oo ku hayo wax badan baad uga daysan kartaa you can learn so many positive look at them beautiful masha Allah I admire them beautiful I love them I admire them and I love them positive energy positive family ku dayasho mudan sharaf badan waxaan wax loo dhigaa jiray gabadha dhaqanka ka timid diinta kaleet mar walba way asturanta waa waxa dadka islaamnimada inagii ku dhalanay waxa inooga sharaf badan gabadha waa ilmo yar kuwa iyada dhali kara yaa maalin walba rada media ku qaawista oo guri muslim ku dhashay oo guri muslim ka soo jeeda this is beautiful keep going I'm so proud of you I have a son like you and girl is like you both of you I'm grading you from Canada and I'm so proud of you you guys are positive example for married couple positive for younger family beautiful you always give us a positive family we know you're a human being you have a struggle for any other family but you always make the choice to be positive to be strong to be shoulder to shoulder you're enjoying your two young parents
knowing the value, their love, and their family, and their unity, and their children. And we are so proud of you. Look, family asturan, gacmaha isaysto, edaab leh, akhlaaq leh, masha Allah. They have a four musiga idinma dhagaysin karo because copyright baa laygu qabsanaya. Beautiful family, and always gabadha markaad aragtid she's positive, wiilka markaad aragtid he's positive. Beautiful family, masha Allah, tabaarak. This every mother waxay jeceshahay inuu wiilkeeda u faraxsanaado. Before waxaan u malayn jiray haddii wiilashaydu gabar caddaana ay guursadaan inay dhaqankooda ka tegi doonaan, inay diinta ka fogayn doonto, inay bad gabadhani waxa ay beddeshay fikirkaygii taasaa because of an wiilkan iyo gabadhan. hadday maanta wiilashaydu gabar muslimtay ama soo muslimaysa ila yimaadaan oo Canadian oo caddaana ama waddamada kale ka timid, fikirkayga wuu isbedelay. waxaan ogaaday there's every culture there is a lot of nice people. kuwa ayagoo muslimiina oo weli guursan oo Soomaaliya oo abbood iyo hooyadood iyo walaalahooda musliyiin isqaawiya ee xumaanta u dhaqmow ku daysada. That beautiful family kaga daysada guurka. kuwa media isku qaawiyo isku caayo iyagoo isqabow. Family should look like that positive. Beautiful family, positive family. This time I have to upgrade my Instagram. marka dadku I don't like negative. Soomaalida in badan baa negative energy jecel. Anu negative energy ma jecli. wax isdagdagaalaya ma jecli. family isku buuqaya ma jecli. family aan isku faraxsanayn. and no waalid rabo every day inay ilmahaaga iyo xaaskoodu ishaystaan, inay wiilkaagu unhappy noqdo ama gabadhaadu unhappy noqdo. qof jecel ma jirto qof jecel. Look at this beautiful family. masha Allah dhahaydu kuna.
beautiful hooyo asturan akhlaaq leh ninkeedii iyo faamiligeedii xumaan laga arkaynin waxa weeyaan dhaqan xumo laga arkaynin mar walba faraxsan ilaahay ha barakeeyo ilaahay ha barakeeyo mar kasta wiilkiiyo gabadhaas aan arko wallaahi waan ku farxaa dhallinyarada guurka uga daysada wiilkaas iyo gabadha dhallinyarada waxay ku guulaysteen inay ilmahooda korsadaan ayaguna istakargareeyaan reerkooda dhaqdaan maxay ahayd tooy ayay ku guulaysteen instagram markaan hagaajiyo waxaa la yidhahdaa aj family baa la yidhaahdaa maxay ahayd tooy instagramkayga logitime baa igu dambaysay waa inaan hagaajisto ciwaankooda wakaasa waxaa la yidhahdaa aj family 2006 marka biliis kaftanka farxadda waxa weeyaan wiilka iyo gabadhaas waa maasha allah dhallinyarada isguursanaysay waxaa laydinka rabaa positive intaad gurigiina nadiifsataan ood ilmihiina korsataan ood shaqaydiina aadaan wiilkaa wuu shaqeeya maalin dhaweyd waxaan arkayay wuxuu yidhi every 5 years xaaskayga fargashi waan ka bedelaa 15,000 oo US iyo fargashi dhaymana xaaskiisa uga soo bixi ninka soomaaliyeed ee xaaskiisa intaa u quuraya waa yarya waa nin dhallinyaraa multimillionaire maaha laakiin wuu ku talagalay bil walba wax buu seef garaynay 4 beautiful boys 4 caruura qurux badan bay haystaa I admire familigan ku daysada guurka uga daysada jacaylka uga daysada positiveka uga daysada waxa weeyaan ragga soomaaliyeedow wiilkaas ilaahay calafkiisa gabadhaasu ka dhigay aan kaalay arag suu reerkiisa u xanaanaysanayo u dhaqanayo wuu shaqeeyaa u takeergaraysanayo aan gabdhaha soomaaliyeeday gabadhaa 4 wiil bay dhashay calooshiina iskuma sii daysan ismana nixin baatina ma jiidayso odaygeeda markay la socoto way labisan tahay way qurux badan tahay maakabkeedaa marsan is a beautiful ma garad 4 caruur ay dhashay hal cunug inay dhashay lagama dareemayo jirkiina dhista oo ay silmaaminina idinkoo habla yaryaraad isgabgaraysiin anyway haddaad faamiliyada yaryar wiilka aj family 2006 instagramka fidiyada yay ku jiraan tiktokana I believe inay ku arko waan ku arkaa I don't know in dad soo geliyay iyo inay tiktok leeyihiin laakiin wiilka iyo gabadhaa waa example ku dayashan wanaagsan laba dhallinyarada iskursanayso waa dhallinyaro qurux badan aniguna waxaan ahay faanka u weyn deer fanis faanka u weyn baana anigu murug iyo wax isdilayo wax iska qabsanayo soomaaliyaan ku soo boga waa soo maray dhib mar rabo wax murug geliya iyo wax isku buuqaya iyo waxaan aad u jeclahay inaan arko dhallinyarada isku faraxsan wiil iyo gabar kasta waxaan la jeclahay sidaan ilmahayga la jeclaysan lahaa anay hob guur sidaasoo kale u qurux badan carruurtayda wiilashayda iyo gabdhahayga inta guurka u baahan ilaahay inuu siiyo iyo carruurta soomaaliyeed oo dhan war guurka sharaftiisu waan ku enjoy the guur you have a 2 choice midi ku taag inaad murantaan oo isdagaashaan oo cadow isku aataan oo midba midka kale iska ilaaliyo iyo inaad sida wiilkaa iyo gabadhaa positive idinkoo qoslaysiin oo carruurtiina gacmaha wadatiin hawsha iisa idinka dhigaysaa oo wiilkuna gabadha isku qurxiyo sida ugu wanaagsan ay ku jeclaan karto oonu oday ugu ekaanin aanu ka jectadin gabadhuna sida ugu quruxda badan ninkeeda isugu qurxiso daadis waxaan arag
beautiful mun maasha allah tabaaraka guurka sharaftiisu haddii kaleete hadhow intaad isnacdo wiilkaa wuu shaqaystaa of course family baa africa ka jira of course inta annagana haysatoo kala haysata xaaskiisa wuu qurxistaa wax alla wixii ku farxad gelinaya ayuu u sameeya ragga soomaaliyeed gabdhaha farxadda waa laga shaqaystaa ee gabdhaha ha u shaqayninoo qaad ha cuninoo cayr aad ha dhiinoo guryaha ha u dhex jiifinine gabdhaha intaad u shaqaysiin dahab iyo dhayma kor iyo hoos ka soo ayadaaba farxad in saas markay idin aragta halkaa iyo halkaa idinka shubminaysa ma garat war familigaa iyo wiilka reerkiisa siduu u dhaqanayo iyo gabadha reerkeeda siday u dhaqanayso 4 caruur oo yaryar bay leeyihin uga daysada instagramka markaan soo furo ayaan idinla wadaagi doonaa beri horaa instagram caruurtayda ay furtay weligayba ma fiirinin qayr aad u fara badan ayaan idin rajin my message to AJ family I love you and I'm your biggest fan and you guys are a positive role model. The multicultural marriage and the two and Somali and American marriages and I give the credit the young mother who has 4 children raising 4 children, but in the same time always have a time for her husband and for herself and always look good and smiling and shining and glowing. On the other hand, I give a big credit the young man, how nice he is, how he support his wife, how he always and showing the love he has his wife and his family. That is amazing. How he put his wife number 1. You're a good example. And how you guys choose to be the light, the positive energy. Keep going. Good role model. And I hope many young couples to follow you in your footsteps. And you guys, I'm so happy for you. And I share with your videos my sons who born in Canada. Some of them come such a young age. And also my daughters who want to get married. How positive you are. Before I see 2 of you, I saw you 2 of you, I used to scare. And I thought, oh my God, if my son is married Canadian woman or American woman, what is going to happen? What's going to happen? My son is become something else. Are they going to act like something else? But you know what? You are more amazing, especially the young mother. You are more Muslim, modern, beautiful. Your hijab, your cover, your beauty is what attractive and is a role model every girl should follow. I love you. I wish you the best. And I pray for you, Allah, to keep you peace and prosperity. And I hope your marriage lasted next 60 years. You get older together, shoulder to shoulder. And I hope you raise your children happy life. And I'm sure, most of all, you're a good role model for your 4 beautiful children that you are raising, because they will take what they saw from here. They will keep. That is how they're gonna be with their families, with their wives. And young Somali man, good job. I'm so proud of you. Habo, keep going. You're a good role model.
and I hope dhalinyarada North America ku dhalatay oo ku kortay iyo kuwa Europe ku koray iyo kuwa Australia ku dhasheen I hope inay sidaadoo kaleete family qurux badan ay soo saar salaamu calaykum iyo kuwa maanta dhalinyarada Soomaaliyeed oo dal iyo dabadda jooga guurku inaanu iscay iyo isdil iyo iska qabsi inaanu ayn iyo mindimita ku taag ee waqtiga guurkooda positive iyo wanaag ay ku enjoy gareeyaan marriage-kooda just like you salaamu calaykum wa barakatuh والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ويلكي يا جبر أمر والبا ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته